marka xildhibaanada Soomaaliyeed aniga hadal badan uma soo istaagin waxa u soo istaagay yaan la shaqeynin inaan saaka ku baaqno aad aan uga xumahay anaka baarlamaanka inta uu furmay hadda jaa sanadan ku dhownahay intaan dhaarsanahay ama shaqeyninba inaan hadda shaqadii dardar gelino waa shaqo diidina waa tan loo qarxinayo shacabka loo laaynayo oo la rabo waliba qaaradda Afrika oo dhan in laga saaro marka waxaan aad ugu fiicanahay inaan isla shaqeyno haddaan xildhibaan nahay laakiin haddaan warka ka bilowno hebel la dhiibay guddiga loo saaray aawa iyo honorable minister la dilay oo professor ah oo ilaahay haddana meel lagu ogeyn dadkii dilayna ay magaalada joogaan ay guryahooda jiifaan waa la og yahay ilaa iyo intii dad la dilay guuro iyo ilaa iyo suxufi meel aan la qarxinin ma laha anagoo dadaan gabdhaha baarlamaanka nahay marka qarxan dhacay waa baroor diiqnay qaaraana waa aruurinay adduunyadana waa laga og yahay waana dhiibnay meeshii loogu talagalan geynay ragga baarlamaanka idintana saasiyaal baroor diiqo meel fadhiista taas gooni waa inta dhimatana Allah u naxariisto laakiin wadankan waa laga shaqeynayaa anagana ma afduubnaanahay 275 xildhibaan ma afduubnaanahay haddaan diidna inaan u shaqeyno dadkii iska lahaay oo hadda la laaynaay ayaa u soo baxay oo shaqo naga qabanay waxyaalaha qaar horta aan lagu hadlin walaalayaal 20 sano ku dhawaad xildhibaanada sanadahay rag inta ka hadlay qaarkood waligood wasiiray ahaayeen ya haddaan wasiir yahay qaylina ceeb waay aan iska daayno waxaas aan warka wadanka u shaqeyno waa la shaqeynayaa guddiyadana waa shaqeynayaan waa laga hadlaa wax walba ciidamada nabadgelyadana wixii intelligence oo dhiibayna waa dhiibay dalkan 100 jaajuus ay joogto waa la dhiibaa dadka la dilay kama hadlaysin dadka la dhiib maxaa hadlaysin kuwa dhamaadayna aan u shaqeyno kuwa nool hadda la dhameynaayo dadka qaaradda dadka ka saarayna qaarkood intay fadhiyaan ilaahay u baryayna kuwaas inuu ilaahay sulsul u keeno oo dadka leenahay mishaareen ku qaataan waliba tamana la soo raraa tamanka inta laga soo raraa wadanka xuduudidiisa way wada furan yihiin waryaa ciidankii loo sameyn lahayn waa lagu fadhiyaa adduunyada aan haysto qaarkeed aan ka hadalna taas laakiin saaka maxay baarlamaanka loo furay guddiga ka hadal gudoomiye kaas aan ka shaqeynayna anaga shaqada waryaa wadanka emergency ku jira emergency-gana baarlamaanka laga furi karo idanka dhahdeen inaan yeedeen ma u maleyseen shacabka Soomaaliyeed aan u sheegaynaa ugu baaqaynaa inay xildhibaanada qaarkood wadanka hor taagan yihiin oo nafta u keeneen oo baasi balay ka shaqeynayaan wada jirka dhan ay diidiyeen waxaan ku fiicanahay baarlamaanka inaan u shaqeyno dadka la dilaayo oo qaarkood fataatir ee qaarkoodna macaanka ama dadku waa isku hal bani aadanka khayraadka dalkana waa loo simeeyahay dadkana waa isku hal honorable minister la dilay meel ku soo sheegay lagama hadli karo qaar kuwii dhahayna hadda intay ka hadlaayeen reer hebel labada gol waxaan ku jiran inaan hebel la taaban karin qof dad dil lama taaban karo dadka la dilayna aan u wada hadalno sharciga aan soo noolayno aan dalku u shaqeyno aan hagaajino dalkeena dadkana waa isku hal haddaan isku halka dhigi weyno wax hagaagaayo male wax toosaayo male dadka aan been u sheegin aan iska tagna baarlamaan ma nihine haddaan qabiil raadinayno aan iska tagna baarlamaanka haddii kale aan ummadda u shaqeyno aan wadanka badbaadino aan shaqeyno aan ciidamo qorno baarlamaanka emergency waa inuu galaa oo dalkan ka shaqeeya shaqada iyo xoreynta oo ismulshiibiya inaan noqono waa hadda oo suuqyada xaaqno oo jididka dadku ku ganacsanayo ka kicino oo ummadda jididka lagu laaynayo ka kicino oo abaabul sameeyno oo raadiyaasha aan ka hadalno taas ay la taayaan inaan shaqeyno wixii barabgaraan dalkan u yaalo baarlamaanka shaqo waadiida waa inuu ka shaqeeyaa dadkii dalka la badbaadiyo hal shaqeeyo wasiir ma aha ani waligeey ma noqonin uma ooynaay dalna uma baabi'inaay maca salaam waan idin hadlay ani